والبانتا كنا صوت سنة كنا كنت سنة البانتا تاجر حتى من غناي هل صار قدامه هوتيل حتى ما تسكر نقول البانتا ما هو سنة جامع قرات كان لواها جامع سياد كان لواها قبناي خذ كذا مركوا لا ليال الله البانتا الله بالبادي والبانتا الله بالبادي والبانتا الله بالبادي ولا لو حنقلنا dadkiina cawada ogeyn cawada waxa baraa mudulada magaca maqasheen abgaala umaleynaysiin walaalayaal beel waxa jirto dulmana jirto oo Soomaaliya walaalaheena mudulada abgaal Cismaan waa taqaan abgaal Cismaan waa badan yahay la fuuno jirto Soomaalida gobta Soomaalida kumid yahay qabiil weyn waaye marka walaalayaal abgaal Cismaan waa sida qabiiladan hadda ay soo sheegayo kala waay oo boosaase oo waxa waay Axmed Hartigo kala waay nimanka la dhahayo Hilbiga iyo nimanka la dhahayo ma taqaana waxdaanka marka walaalayaal Hilbiga wuxuu degaa magaalada Balcad u degaa waxa waay dawladda Maxamed Saad Bare waxay ahayn wax bartay dad waxay ahaayeen dad u fiican ahaayeen dad waxay ahaayeen wasiir dawladda Saad Bare ku jirtay dad waxay ahaayeen oo kala arago maasha Allah oo maasha Allah ay ahaayeen laakiin walaalayaal nimankan waxa waay ayagana waa la siray waxa waay abgaalka siray meel walba abgaal u dhudooy nin Hilbi ah waliga maqashay Hilbi meel fadhiyo oo wax ka hadlayo waliga maqasheen waligiin waxdaan oo xaqiisa dhaxsanayo meeshan waxdaan ku shira waliga maqasheen meel walba waxa lagu soo qoraa mudulad marka aragtay waxa arkaysa abgaal Cismaan arkaysa waxay ka mid tahay cadaalad darrada iyo waxay ka mid tahay ma taqaana dhibaatada haysto marka Hilbi dalan dad la yaqaan waay dad gob waay laakiin marka Hilbi dalan doole iyo ninka la waxdaan abgaalka wuxuu uga sheekay sida majartaanka kala koon waxa lagu sheekay waxa la idinka waa dhumaysiin macnaha wada dad yariish oo dad yaraatiin macnaha waa dhumaysiin la yiri anaga ugu dhex jira Hilbiga maskaxdiisa dalandooli wuxuu iska dhaadhiciyay inuu dhumaayo meel buu joogo Hilbi saas wallahi buu sheegay nin Hilbi haduu Yurub imaado u fiirso nin Hilbi haduu Yurub imaado meesha uu aaday oo ka soo noqonay bis u xisaabsanaa ma laga yaabo inuu socdo iyo inuu safro iyo ha ka sugin iyo waxaan ku fiirso wallahi Yurub meel buu joogan saas way markuu meel aaday uu fiirna jidku fiirna suusu dhul macnaa maxay yeelay waxa lagu soo koriyay waa dhumaysaa inuu dhumaa u malaya miskiin inuu dhumaa u malaya la hawla wala quwwata meel buu joogo Hilbiga taas waa ka sameeyay marka waxa waay wax la yaabo waay war dad gob ah oo beera leh oo Soomaaliya dawladda Maxamed Saad Bare ku jiray oo wasiir ka ah wallahi bilaa ilbaxwa ina Hilbiga ilbaxwa ina bay ku sheegeen wallahi bilaa ilbaxwa waxaan kan ilbaxwa laakiin waxa looga sheegay waa dhumaysin ayagoo Yurub joogan ku dhahay wallahi bay ku sheegeen wallahi inuu dhumaa u malaya kaligiis ma soconaa hata qof la socona wallahi bilaa talaa qof abgaale am qof kale la socona markaas meel waxa laga shaqeynaa mudulka waadu baaba mudulka buni abula meesha soo dhiga baaba mudulka faataxada mar Hilbiyo baaba waxdaan faataxada mar baaba mudulka waxa lagu soo maraa ku dhaa ilaa muddo 3 sano wax kasta oo mudulku uu leeyahay hindhooda ma saarin xoolo mudulku leeyahay ma curin dhigooda mudulku leeyahay ma curin wax ay haystaa ma Soomaali isma taqaan Soomaali wallahi Soomaali isma taqaan marka waxa uu leeyahay mudulka baaba mudulka wallahi bilaa tala waa dulmay waxdaan Hilbi dalan doole wallahi bilaa tala waa dulmay qabiilada kala alxaqana Soomaali isma taqaan la hadda isbaranaysa abgaal Cismaan oo Ilaahay ka cabsada abgaal Cismaan oo Ilaahay ka cabsada dad wanaagsanaatiin dad fiicanaatiin mudulkan aad dadka ku mareysanaysaan mudulkan habagidilta ku jibinaysaan mudulkan aad daaroodka aad ku seexinaysaan abgaal iska dhaafa si dhaba uga dhabeeya Hilbiga miskiinka aa leedahay waa dhuma hadaa socoto oo meel la iska fadhiyo wallahi